shirkan way soo qaban qaabiyeen ururada bulshada rayidka X Banaadir ayaa ahaa mid looga hadlay horseedka nabadda iyo muhiimadda ay leedahay ka qayb qaadashada nabadda waxaana goobjoog ahaa aqoon-yahano dhalinyaro culimaawidiin iyo siyaasiyiin intii kulankaasi uu socday waxaa diiradda lagu saarayay in qof walba oo Soomaali uu ka qayb qaato nabadda iyo horumarka dalka ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka X Banaadir Muxudiin Xasan Afrax qofta nabad ka maqanta qofta waxbarasho ka maqanta qofta baayo hayso qofta muraad kale leh kulligood dawladnimo ku jiraan shirkayna maanta wuxuu ku saabsan yahay nabadeyntaas in bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto ugu baaqno nabad yani ku soo dhaweeyno nabad ururada bulshada deegaanada Banaadir X Banaadir saas ay ugu baaqayaan Soomaalida waxaan rabnaa anaga kaliya waxaan rabaa shirku wuxuu iclaamaan furo wuxuu sheego shirku soo nabadeed waaye dadka waxa kala gaara dowladnimo ayaa kala gaara wixii dowladnimo ka yaro waxaan haajarna waaye waan ugu dhabarka u yiileen waxaan leenahay horta dowladnimada ha loo heeliyo hal helo nabad cid kastana muraadkeeda nabaday ka dhexli kartaa nabadana waxa laga dhexli karaa in dowladda jirto sana على الناس وليهاي وانا ما هيستا واحنا ما قبن كان ما يلينو انا فصحة انا نبكينا رئيس الوزراء هوري Soomaaliya علي محمد Geedi oo kulankaasi goobjoog ahaa isla markaana ka jeediyay khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo dawladnimada marka siyaasadda laga doodo waxa la yiraahdaa warmidnimada maxay la maqan tahay waqooyiga baa diiday oo goosanayna xagga la taagan waqooyi Soomaaliland anigu waxaan aaminsanahay in badan oo Soomaaliya waxa hor taagan midnimada Soomaaliya koonfurta waana idin cadeynaya sababta ilaa waa idinku dhaashay qof kasta iska soo qaada shakhsiyadiisa guriga kugu dhagan hadduu gubanayo holayo ma waxaad ku darsanaysaa waxba ku darsamayso waa ka fogaanay koonfurta waa la demin waaye dadkeeda koonfurta waa la nadiifin waaye koonfurta hadday inta nadiif noqoto kala dambeyn iyo amni iyo ganacsi iyo nolol iyo Soomaali jacayl lagu arko ciddaas inay imaanaysaan aaminsanahay iyadoon qofna u yeerin waagii calanka Kenya yaa u yeeray iyagaa gartay shacbigaa soo diray shacbigii soo diray isagoo inta ka aqoon badan oo ka waaya aragsan oo ka xoolo badan ayuu joogaa laakiin meel ay u diraan siyaasiyiinta ilaa yihiin ogaal horta Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh Universal TV Muqdisho